الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، waxaan joognaa waqtiyo iyadoo waqtigan laga wada faa'iideysto ay ahayd, fursadahana inaan la dayicin ay ahayd. waxaynu ku jiraa xilli fasaxyo badan la galay, kuwa ka badanna fooda inagu soo hayaan. ubadkaniya in badanoo ilmaha ahayd, arday wax dhiganaysay iyo iskuulla furnaa iyo maamul iyo macallimiinka la hayay yaa maanta guryaha wada fadhiya. ardaydii guryahay joogaan, maamulladii guryahay joogaan, macallimiintiina guryahay joogaan. sax, waalidku gaar ahaan hooyooyinkii wakhti firaaqo ay heli jireen bay hadda waayeen. oo dee carruurta markay iskuul iyo dugsi meel ka wada aadaan, waxoogay wakhti u soo bixi jiray guryaha la wada joogaa. fasaxyihii sanadka dabayaaqadiisa oo la wada fadhiyina waa fadhigu badan doonaana waa inugu soo socdaan, oo shaqaale iyo xafiisyo badan la fasixi doono. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagala dardaarmay labo inaynan dayicin. wakhtigaad firaaqada leedahay inaadan dayicin, intaad caafimaad qabta ee jidhkaagu xoogga leeyahayna aadan dayicin. wuxuu yidhi laba ilaahay aadamaha ku mannaystay, gallad iyo nicmo weynna ku ah, wax badanna ay uga faa'iidaysan karaan, dadka intiisa badan way ku khasaareen. kama faa'iidaystaan, way ku khasaaraan. midi waa caafimaadka jidhkoodu uu qabo. qof indhihiisii caafimaad qabaan oo araggiisu fayow yahay, xubnihiisii iyo jidhkiisii xoog leeyihiinoo caafimaad qabaan, oan uga faa'iidaynin wax adduun anfaca iyo wax aakhara wax taratoona. iyo qof wakhtigiisii firaaqo badan haya, oon wax aakhara wax tara iyo wax adduun wax tara midna aan uga faa'iidaysanaynin. sidaasay dadku u badan yihiin. wuu soo toosa 24 saac markuu qayb ka mida seexdo, ilaa uu wakhtiga kala seexdo, wax badanoo adduun wax tarana ma qabsado, wax wanoo fiicanoo aakhara wax tarana ma qabsado. dadka lala hadlaya waa un aniga iyo adiga, cid kale maaha. markaan isweydiina dhammaanteen, saaka waad soo toostay, hadda waxaan joognaa 7 saac. salaaddii subax 8 saacadood baa ka soo wareegtay wakhtigaynu tukannay. 5 iyo waxoogay baan tukannay. haddiiba xataa 6 aan gaadhsiino 7 saac baa ka soo wareegtay. 7 saac maxaad aakhara qabsatay? maxaa adduunku anfacayood qabsatay? wakhtigaagiisa imisaadan garanaynin wuxuu ku baxay. waad soo baxday, telefoon baad ka hadday, maantoo dhan baad gedgediday, 1 saac 2 saac baad ku jirtay, waad laabtay oo waad isku laabtay. aakhariyo adduun intaad eegaysay maxaad faa'iide ka haysaa? maxaa adduunkaagii ku anfacayo waqti 3 saacadood ku luntay? maxaase aakharaadii ku anfacaya? telefoonkani wax adduunkaagii ku anfacaya ma ka baaraysay? raxim intaad la hadashay ma xiriirisay? qof wax u baahan nacfi intaad la hadashay ma anfacday? qof su'aal diina u baahnaa ama adduunyo ah ma anfacdo ma uga jawaabtay? aduu ma ku kororsatay? wax ma ka akhriday aakhariyo adduunkaagii ku anfacaya? mise wax dembi ihaba markaad ugu fududdahay waxaan dhibi laqwi ahoo faa'iide aan lahayn baad ku mashquulsanayd, hadduusan dembiba ahayn. amaad waxun daawatay, amaad waxun qortay, amay dhegahaagu wax macsiyo dembiya dhegaysanayeen, indhahaaguna waxun daawanayeen. haddayna labadaa midna ahayn, soo laqwi iyo maalaayacni wakhtigaagii kuma lumin. wakhtigaagii maanta fasax baad ahayd, jumcay ahayd, dugsi maadan aadin, shaqanaydaan u kallihin baa laga yaabaa. maxaad faa'iidaysatay? intaa un weeye, maalin walba wareeggaa un weeye. 7 saac hadday tagtay, 7 soo socota maxaad qaban doontaa? jumcada waad ka baxday, bannaankaad istaagtay, gidaarada ma sheekaysay? wax khayr lama qabatay? wax ku anfacaya ma samaysay? adduunyadaadii wax ku anfacaya ma ka shaqaysay? qofku inta wakhtigiisu qiimo la leeyahay buu wax ka taransadaayo ka tara. noloshaadu ma og tahay
inay saacado iyo maalmo la isku daray tahay. waa saacado kadib maalmo isu bedelay, kadib toddobaadyo noqday, kadib bilo noqday, kadibna sanado noqday. markaad dhalatay durbo waa ka dhabarkuna soo goday, indhuhuna waa daciifeen, luguhuna waa tabargabeen, kadibna guriga iyo sariir fadhi baad noqotay. haddayba geeri iyo malakumood ku daayana mayd sariir saaran baad noqon. intuba marka la isku daro waa maalmo, usbuucyo, bilo iyo sanado la isku dardaray wey. waktiguba soo intaa maaha. hadda waa yeeshay markaad xoogga badnayd maxaad soo qabsatay aakhiradaada iyo adduunka ay ku anfacayay, wakti intee leeg baad bixisay. saa darteed waxay soo nicmataani maqbuunun fiihimaa kaiiru min annaas. laba nicmo weynan ay wen yihiin baa sidan gaarkaa loogu xusay. caafimaadkuna waa qaaliyo markaad weydaad garan, laakiin waa nicmo aan la xasuusan. haddii 30kii bisha aan ku jirna hadda keliya 29 habeen aad si fiican u seexato, saacadaha qayb ka mida habeena hurdadu cajcajis iyo xanuun kaaga meermeerto, intee nicmada ahayd sheegi mayside. xalay waan seexan waayey, saacad baa xanuuni qabtay baad ka sheekayn. xanuunka aad seexan weyday ku xasuusan maysid 30kaad seexanaysay nicmadii ilaahay ku siinayey ma ku shukriday, si fiicanna ma u isticmaashay. haddii caawa intay waxoogay xanuunsato, naqaska iyo neefi kugu dhegto, isbitaalka lagula cararo, oksijiiniya waxaad ku neefsata lagugu xiro, dhakhtarku intuu kula tacaalo, irbadi iyo dawi iyo wax kugu rakibo, neeftu kaa soo baxdo, lacag kastana waad bixin oo laguu sheegay iyo boqolaal kun iyo malaayiin. alxamdu lilaahina waad nafisi, dhakhtarkiina waad u mahad celin. laakiin 60 sano rabbigii hawadaa bilaash kugu siinayey ma ku shukriday? mase aqoonsatay abaalka iyo nicmadiisa? maya. waxaadun ka sheekayn intaad nicmo hawo bilaasha hesho oo lacag la'aana oodan dhib dareemaynin oo 10 sana ka soo wareegtay, intaa xasuusan mayside. dhakhtarkiina waad sheegsheegiyo waad ammaani, lacagtii kaaga baxdayna waad sheegsheegi. tii bilaashka nicamka caafimaadka ahaydna meesha maba taallaba. bal u fiirsadoo cimrigeenna waxaan ka xasuusannaa intaan xanuunsannay. intaad xanuunsatay baad cimrigaaga xasuusataa, laakiin intaa caafimaadsaneyd ma xasuusatid. cimrigaaga markay xoolo kastoo tabcaday naftu halis gashoo la yidhaahdo hanti bay u baahan tahayna, tan iyo hantidaadoo dhan waad soo xaraashi. sabab caafimaad inaad hesho qiimaha halkay kaa joogto, hantidoo dhanna waad xaraashi. ilmahaad dhashay in kelli lagaaga bixiyana diyaar baad u tahay oo waad ku baryi. inuu baari yahay waxaad ka ogaan keliyihiibaa eberku noqdaye inuu mid kuu bixiyo. laakiin 60 sano rabbigii 2 keliyoodoo bilaashoo caafimaad qaba ku siiyey, nicmadaa u xasuusan maysid oo ku shukrin maysid. intee baan caafimaad qabnay? intee baan nabad ku cawabarinay? maxaan se cibaado ilaahay geysannay? intee baan khayr uga faa'iidaysannay? qof kastoo inaga midoo xasuustaay inaan gaabinoon gabood fallay, maqbuulun fiihimaa kaiiru min annaasi nahay baad garan. wax tegay tiig ma leh. inta dambe ma taba qabannaa? aanadaate waa la daba qabtaaye inta dambe aynu daba qabanno. maalin kasta ood xanuunsato bal isbitaalka tag, adoo xanuunsanoo isla yaabanoo le wax naf baa ku haysa. isbitaalka markaad degto 100 kaa daran baad ugu tegi. markaasaad dhakhtarkii si aad xanuun ugu sheegataba garan waaye. maxaad sheegataa? 100 kaa daran baa safka fadhida oo halkan taalla. kuwa neefta aduwaaba socotaaye, kuwa oksijiin ku rakiban yahay, kuway calooshu bannaanka taallaa, kuwa labadii indhoodba geb yihiin, kuwa saxaradii laga qaadayaa. mararka qaarkood waxaad isdhihi intan ilaahay caafimaadkan ku siiyey ummaddan waxaan haysta, ilaahay ku shukriyo iska noqo. laakiin wax ka fiicanun baad raadin. haddii aad eegtoon inta kaa caafimaad badanee didaysa, inta caafimaadka aad haysata hadda ilaahay ugu shukrin maysid. haddaa adigu intaa iska fadhiisatood kici weydo, aad tasbiixsan karto, inbaa kooma ku jirtoon tasbiixsan karin. berri markaad kooma gasho ama carabka uu nabar kaa gaadho, waa inaad caafimaad qabtoo tasbiixsan karta aad xasuusan. caafimaadka iyo sixadu marba in bay joogtaa. in kastood haysatabana waa nicmo ilaahay ood wax badan qabsan karto. adduunka haddaadan markaa qaban karinna aakharadii wax qabsan kartaa jira. walidaalika qofka muslimkii wakhtiga noloshu daqiiqadda iyo sakanadu qiimay la leeyihiin. maxay ula leeyihiin? haddiiba dunidan aan tegayo 1 daqiiqa haddii la isiiyo
وبقول تر تسبيح صدو أجر وينه بين السماء والأرض بوحية وآخر الزاد إنه غضان لا تغيّا صادرت الدقيقة كستاي أنا الرأس مال يتبع وين ما تبعا كرا ما طبعنا وقتك فراقة هينو إن تلفون بعد كشرته إن تي في بعد دعوانا يسا إن فرد كدير بعد فرد دا إن تردين كتاجن تهي إن واحد كشرته ويب سيدات آخره يسا مالنتي إن مثال القرآن آخر ذي جزء إبكوا جزء إن مثال لغو آخر يا 8 دقيقة تلفون كفرد كدير رمسو كشرته 8 ساعات 8 ساعات مركوز سيحنا يانا بستاهو هو أنا يهوستي سو كسيفيريا هلينكي مركو إسقديانا انتو سنمر لبات سيحن وشرايا وفيريا لكن اهتمام كانت قرانا إنساني مركا لغاها الله يا النبي عليه الصلاة والسلام قفكي من تهبينكي إسقديا وأذكار تقاركوت أخرية نار بالله حرين بالير وحلقة هنا ترى القف ردو إسقديا سابوا استغفار وحسوسا وسابوا تلفون وحسوسا همدي إيا قلبك وكوينا التلفون كانت كو حسوستي هستا استغفارت كوين تهوى حسوسان استغفارتنا وحي كوي واي حسوستا سوما دارك هدي قف حنوسان يلما حنوسان لك شيفته مكا يسرقتو واد فيرين قندي سا تاوان سببتو همي بو كوو هيي مركا تسيحانيسay inaad ka warqabto ninkay salaad iyo dhikri iyo quraan iyo tasbiix iyo istighfar hammi weyn ku hayaan habeenkii markuu isrago astaghfirullah subhanallah inuu yiraahday wa xasuusan laakiin hadaynan wax weyn kugu haynin de xasuusan mays inta nolosheena kamidaadna ku garan war waqtigii buu nabigu leeyahay ka faa'iideysta marka la waa ka nabigu lahaa shan ku qaban doonto shanta kale uga faa'iideyso caafimaadkaaga ka faa'iideysa intaadan xanuunsan firaaqada markaa tahayna ka faa'iideysa intaadan mashquulin aqoon uga faa'iideysa waxbarasho uga faa'iideysa maxaan qabtaa buu ku leeyahay dhalinyarada wuxuu leeyahay maxaan qabtaa oo adduunka imisaa kuu taalla aakharas imisaa kuu taalla noloshan mawjadaha ee mashaakilka badan ee hadda fooda saartay soo zaadiya sahay aqoona zaadiya sahay alla ka cabsiya zaadiya sahay khibrad iyo waxbarasho soo kaagama baahna mawjadaha nolosheed galayso ee intii horena wada burburisay intii muddo ku soo jirtay kuwa yeeshay jirkoodii mawjadahan sayd madawadu u dhacaysay doon alwaax u fuqday bay wada noqdeen anna taun ba alwaax iyo cadcad ku kala fiiqi doonta khibrad baad u baahan tahay aqoon baad u baahan tahay ilmaheeni fasaxyay ku jiraan macallin haddaad ahayd mashquulsan maanta fasax baad tahay arday haddaad ahayd iskuul subax kala haya hadda waad joogtaa aakhari adduun maxaad kasbatay waqtigaaga khayr ma gelisay fasaxyaa lagu wada jiraa jumciya khamiis ba qaar fasaxyiine jumciya khamiis xageed gelisay ciyaar iyo maala yacni iyo xan iyo dambi baan wada gelinaa bal makhaayadaha casarkii tag meel la kala fadhiista ma laha bal dhagadhaga maxaa lagu mashquulsan yahay badankood dambi baa lagu jiraa mayse aakhara sugaysa maydka marka la aasayo baa dembigii lagu sii jiraa kii aan hadda ku tukanayna kuma waana qaadanno war ilaahaynu ka cabsanno war waqtigaan ka faa'iidaysanno war intaan caafimaad qabno in xoogga leenahay aakhara aan wax geysanno adduunkeennu ummadda iyo aadamaha ilaahay wax taraya aan ka shaqayno iyagana adduunkana nacfi buu noqon aakharana ajir iyo thawaab buu noqon waqtiga aan dhuminaynana aan ka dayno inaad u timaado qof oo ku yimaado ama ku yimaado oo ku yidhaa warniyow kale waqtigaan isku soo dhaafinna banooni baan aadaynaa waqti isku soo dhaafinno barnaamij aan daawanna waqti aan isku dhaafinno makhaayadda aan fadhi ku diri fadhiisanna muxuu ka hadlayaa keliya aan waqtiga isdhaafinno waqtigii baa culays noqday wuxuu noqday dhib la isdhaafinayo isaga laftiisaa mushkilad in la isdhaafiyo iyo balaayo in laga takhalluso u baahan noqday walaa maxay ka dhigan tahay salaadii cibaadadiina culayska aan iska ridno ku leh salaada culayskeedana aan iska ridno waqtigana aan isdhaafinno waa cod dhib aad isdhaafinayso ma ahayn sida saxda waxay ahayd noloshaaduba joogitaanka dunida waa waqtigaasoo la isku dardaray oo yaryarka ah intaa la isku dardaray baa cimriga aad joogta noqotay war waqtigeena aynu cibaado gelinno aynu tasbiix gelinno aynu cilmi iyo waxbarasho gelinno aynu waxa doomada anfaca gelinno intaa haddaan gelin weyno waxa dembiga ah iyo waxa doomada ilaahay dhibaya aynu ka dayno oo intaa cidla iska aad haddaad waqtigaagii wax khayrood gelisa weydo gurigaaga ku ekow meel dur cidla iska aad
intaad dad dhibi lahayd oo dembaabi lahayd ama dad aad wakhtigoodii dhaafin lahayd ood ka mashquulin lahayd keligaa meel cidlaa iska tag oo dhibkaaga inaad aadamaha kala fogaato sadaqatun buu nabigu ku tir sal intaa sadqa ka dhigo ilahay khayrka hayna waafajiyo ku wakhtigooda iyo cimrigooda khayrka uga faa'iidaysta wanaaggana sameeyana allah inaga dhigo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اختم الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنيران اللهم احينا على الإسلام ومتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر